halkan waa garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho dabcan goobahan dhan waxa loo aqoon jiray tuuladii isboortiga ee dalka garoonkan wuxuu ahaa mid kamid ah garoomada ugu waaweyn ee qaaraddan Afrika wuxuu martigeliyay dhacdooyin kala duwan ee isboorti oo isugu jira heer kooxeed iyo heer qaran waxa la xusuustaa in garoonkan la aasaasay 1977 waxaana uu qaadaa ku dhawaad 60,000 waxa lagu xusuustaa inuu marti sooray tartankii kubadda cagta ee xulalka bariga iyo bartamaha Afrika 1978 sidoo kale tuuladan isboorti waxa ay ka kooban tahay dhowr qaybood waxaa kamid ah kubadda kolayga kubadda gacanta volleyballka iyo sidoo kale ciyaaraha fudud kubadda kolayga waxa lagu xusuustaa in lagu qabtay tartankii All African Games 1981 oo Soomaaliya ay gashay kaalin saddexaad isla markaana koobkii ay hantiyeen ciyaartooyda xulka maroodiyaasha Afrika ee Ivory Coast waxaan idinku wareejinay maanta stadium Amisom oo halkan deganay 7 sano waxay soo gabagabaysay joogitaankeeda waxaana amnigiisa la wareegay ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa farxad noo ah iyo reyn noo ah maalin taariikhi ah inaan la wareegno Stadium Muqdisho in maanta aad aragtaan geediyo la goynayo caruurtii dhalinyarada Soomaaliyeed oo stadium ku ciyaaray geedaha ku fuulay antii macaan waa waxaan hoy laga waday in Amisom ee ka baxda garoonkan waxay ahayd howl muddo soo socotay balse maanta ay rumoodeyada bahda isboortiga Soomaaliyeed saa ogtihiin process dheer bay soo martay laga bilaabo August 2011 ku xigto 14kii April 10kii maantana inay gacanta ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ciidamada qalabka sida ay ku soo noqoto waa arrin aad u weyn wasaaradaha iyo ciidamada qalabka sida ku shaqada leh arrintan waxaan ka rajaynaynaa inay dhamaystiraan runtii la wareego kaliya ma shaqadana dhamaystiraan wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya mudane Xasan Cali Maxamed oo kamid ahaa mas'uuliyiintii dawladda ee halkan timid ayaa u mahadceliyay ciidanka Amisom wuxuuna dhinaca kale sheegay inay tani qayb ka tahay qorshaha ciidanka Soomaaliya ee amniga dalka kula wareegayaan ayadoo tanina ay qayb ka noqon doonto qorshaha kala guurka ee transition plan ee ay ciidamada Soomaaliyeed kula wareegi doonaan ammaanka guud ee dalka Soomaaliya insha Allah ta'ala anagoo amaamirtii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed aan fulinayno in maanta meeshan aan la wareegnay meelo kale oo ka badan inaan biishag la wareegi doono shacab badan oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ku kulmay garoonka Stadium Muqdisho si ay ugu dabaaldegaan guusha u soo hiyatay bahda isboortiga Soomaaliyeed waxaana durba halkaas ka bilowday howlo shaqo oo geedaha looga jaray garoonka Stadium Muqdisho basma caamir gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir ayaa xustay in ka maamul ahaan ay qayb ka qaadanayaan dhismaha garoonkan caalamiga ah ee Stadium Muqdisho waxaan baaq u dirayaa ganacsatada ku nool gobolka Banaadir iyaga waxaan ka codsanaynaa inay dhismaha isboortiyada ee qayb ka qaataan kuwa wadanka jooga iyo kuwa wadanka dibadiisa jooga waxaan rajaynaa ciyaaraha gobolada ee lagu soo dhow insha Allah inaan ku qaban doono isboortiyo Stadium Muqdisho haddii Ilaahay yiraahdo waxaan hadda la filayaa in dawladda iyo sidoo kale xiriirada kala duwan ay iska kaashadaan dhismaha tuuladan isboorti sida garoonka hadda aynu taagannahay ee kubadda cagta oo ahaa garoon caalamiya oo ka mid ahaa garoomadii ugu wanaagsanaa qaaraddan Afrika Xabiib Axmed Cali TV-ga qaranka Soomaaliyeed garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho